Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad ku soo dhawaataan channelkeeni Maxamed Sahal. Maanta waxaan ka hadlayaa qaabka haddii daatada loo isticmaalayo ay si kedis ah kaga xumaato. Sidoo kale haddii mool hostiga uu ku shaqayn waayo ama aad furan kari weydo qaabkaad u furi lahayd. Haddaba si aan wada socono fadlan haddaad ku cusubtahay channelka subscribe saar si aad u socotid dhammaan fiidiyada cusub aan soo dhigo si aad uga faa'iidaystid. Sidoo kale like-na saar asxaabtadana ula wadaag. Okay, haddaba waxaan ka hadlayaa haddaba si aad uga faa'iidaysatid fadlan ila soco ilaa video intuu dhammaanaya ila soco. Okay, waxaan ku horeynayaa daatadan ku horeynayaa waa mool hostiga daato weeyaan labada ciwaan aan ka hadlayo daatadan ku horeynayaa. Marka hore waxaan tegayaa settingskan aan tegayaa. Waad la socon kartaa settingska tag ama settingska aad waxaad ku dhufanaysaa connectionkaas ku dhufanaysaa. haddaan moolkeenu haddaad galaxy wadatid isku nooc baan nahay waad la socon kartaa connectionka taabanaysaa si fudud. Connectionka markaad taabatid waxaad sii taabanaysaa data usage waad sii taabanaysaa. Data usage markaad taabatid halkaas. Okay, haddaba haddaan isku nooc ahayn kana waxaad sidoo kale ku geli kartaa moolkeenu tusaale isku nooc bay manihin Airtel baad wadataa ama Tignet baad wadataa. waxaad samaynaysaa xagga sare waxaad ku qoraysaa mobile data ku qoraysaa xagga sare si fudud mobile data xogaa sikimo yarna u qaadanaya waad u dul qaadanaysaa intaana. Okay, hadda wuu soo saaray dhammaan wuxuu inoo saaray wax alaal wixii mobile data la xiriiraya oo dhan buu inoo saaray. Inagu waxaan dooranaynaa mobile data usage waa dad Airtel wadato ama Tignet wadato. Mobile data usage baad ku dhufanaysaa. Okay, isla barti baan hadda joognaa barti aan xagga hore kasoo galnay ayaa halkan ka joognaa. Okay, waa isku mid halkaas waxaa kuu soo qormaya tira ay isticmaashay ayaa kuu soo qormaya. Okay, haddaba isla barti baan joognaa xaggaas waxaa kuu soo qormaya tirada isticmaashay daatada isticmaashay kuu soo qormaya. xagga hoose waxaa kuu soo qormaya inta aad ugu talagalay ama intaad adigu isku qoondaysay ama intaad adigu isku qortay inaad isticmaashid bil inta isticmaashid. Tusaale ahaan anigu halka waxaa igu qoran xagga hoose waxaa igu qoran aniga inaan bishi isticmaalo 4.99. haddana waxaan marayaa 4.18 GB baan marayaa. taas waxay keeni kartaa marmar anoo bishii 5 tahay ama 20 ay tahay inay iga xidhmato sababtoo xaddigii aan isku qoondeeyay ayaa intaas eeka ama xaddigii aan mool ku save garay ayaaba intaas leeka intaan ama dhaafi karo. yacni waa qaab aad ku save garaysan kartid daatadaada ku save garaysan kartid oo haddii aad daatadaada aad controleysid weeyaan. waa qaabka shirkaddu faa'iidada shirkaddu kuu samaysay weeyaan. sidoo kale faa'iidada leedahay waxaa weeyaan haddaanad badanka aanad garanaynin marmar buu daatada iska kaa xidhaysaaba adoo waxyaalo muhiima ku jira ayay iska kaa xidhaysaa. taasna waa faa'iido daray ku tahay qaabkibaad u hagaajin kartaa qaabkibaad u furan kartaa ayaan ka hadlaynaa. waxaad tegaysaa marka hore sim cardka tegaysaa data ka isticmaashid sim card 1 iyo sim card 2. waxaad tegaysaa sim card 2 anu sim card 2 baan ka isticmaalaa. sim card 2 baad tegaysaa waxaad kasii dooranaysaa mobile datadaad furaysaa. mobile datadaad furay waxaan si taabanayaa billing cycle and data warning baan taabanaya. waxaan kasii taabanayaa data warning baan ka taabanaya. data warning weeye baan sii taabanaya. waxaan ku qorayaa haddaba xaddigaad rabtid anu xaddigaan isticmaalo badanka waa 30 GB. data warningkeeni muxuu noqday 30 GB buu noqday. wuxuu noqday 30 GB buu noqday. Okay, back dheh dib uga noqo. haddaba waxaad ku daatada mobile datada hadda waad isticmaali kartaa mobile datadaada si fudud ayaad isticmaali kartaa. hadda halkaa hoose waxaa igu qoran 30 GB igu qoran halkan way inteeda isma bedin 4.18 GB ayaa igu qoran ama gigabyte ayaa igu qoran. just magabayda ka dhigan kartaa dib malaha laakiin badanka magabayda lama soo GB la isticmaalaa. 30 GB
ayaa halka kugu qoran, ayaa halka igu qoran 30 GB halka waxaan ka dhigtay 30 GB baan ka dhigtay awal 4.99 buu ahaa. haddaba daatada waa isticmaal karaa si fudud oo isticmaal kartaa iyadoo aan bilna iga goyn waxna iga goyn bila xakameyn la'aan. laakiin sidoo kale la soco haddaad 30 GB daatadaada ay isticmaasho iyaduna way kaga go'aysaa waa inaad sii kororsataa 50 60 100 baad ka dhigan kartaa adiga ikhtiyaarkooda ku xidhan yahay. taas waa daatada weeyaan qaabkaad u furi lahayd. Okay, haddaba qaabka waxaan eegaynaa iyaduna qaabka sidoo kale aad u furan lahayd mall hostiga haddii uu ku diido mall hostigu halkan mall hostiga aan tijaabineynaa marka hore. mall hostiga ila fiiri ma furmayo lacag ixtidaas ayra ma furmayo haddaan ku celceliyo ma furmayo sababta uu diiday wuxuu ku leeyahay data safarka ayaa ku furan. haddaba qaabkooda u xalin kartaa waxaad searchiga ku sheega taabanaysaa waxaad qoraysaa mobile data qoraysaa iskama qaadanaysaa waa u yara dul qaadanaysaa intaas waxaad ku dhufanaysaa mobile data usage ayaad ku dhufanaysaa. Okay, waxaad taabanaysaa tan waa ta ugu fudud weeyaan waxaad taabanaysaa data saver baad taabanaysaa. data saverka waxaad siinaysaa off waad siinaysaa waad iska xidhaysaa off baan siinayaa way iga xidhan tahay back day. haddaba mall hostiga eeg inuu furmi karo mall hostigan fiirinayaa hadda mall hostigii wuu furan yahay dadkana waa daatadeeda waa u share gareyn karaa ama qof kale xog u share gareyn karaa ama wax waa uga diri karaa ama dhammaan waxaan isticmaalo mall hostiga loo isticmaalo hadda waa isticmaali karaa mall hotspotku wuu furan yahay. taasna waa qaabkaad u furan yahay weeye. fadlan haddaad jeesaan hore u sheegay haddaad channelka cusub tahay subscribe saar like-na saar asxaabtaadana la wadaag. sidoo kalena haddaad u baahan tahay fiidada horena waad daawan kartaa. haddaba si aad channelkan ugu xidhnaatid fadlan subscribe saar sidoo kalena aan hore ku sheegay asxaabtaadana la wadaag. waa maxaad sahal oo nileeyahay mar kale iyo kulanti wacan.